munaasabadan maanta waxaa noogu soo booqday wafdi rasmi ah oo dalka Turkiga uu hogaaminay wasiirka gaashaandhigga ee Turkiga horena uu ahaa taliyaha ciidanka ee Turkiga oo yimid waxaa la socda taliyayaasha ciidamada xoogga dalka Turkiga badda iyo cirka wafdiga baaxidiisa waxaad ku garanaysaa wafdiga noocan oo kale ah Soomaaliya waxay yimaadeen 73dii waxaana noocan oo kale ku yimid wasiirka gaashaandhigga Soviet Union xilligiisii Ruushka hadda loo yaqaan iyo hogaamadii ciidamada xoogga dalka xilligaas USSR-ka xilligaas iyo heshiisyadaas iyo booqashadaasna waxaa ka dhalatay in Ruushku uu la wareego ballan qaado dhisana fuliyana dhismaha xoogga dalka Soomaaliyeed ee aanu u naqaanay zamanadii dambe lidaaxyada Afrika taas macnaheedu waxa weeye munaasabadan waa munaasabad labaad oo Soomaaliya u timid oo taa macnaheedu yahay dawladda Turkiga ahi baaxadda ay ku yimaadeen iyo damaca iyo talagalka iyo qorshaha socda inuu yahay inay wada dhisno ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed badda cirka iyo dhulka waaba ku jiraaba hadda ciidamada Turkiga iyo dawladda Turkiga iyo tababarkooda waaba socotaaba laga hadlay marka goorbu bilaabanay waxa laga hadlayaa misaal la dadajinaya maxaa la ballaarinaya maxaa la hor dhacaya maxaa dib loo dhigaya hadee hawsha hadda socota sidee loo dabdalgelinayaa oo ka duwanaanaysa heshiiskii bilateral heshiiska ahaa ee Soomaaliya iyo Turkiga oo dib loo ballaarinayo loo fidinayo la gaarsiinayo heer ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed ay ka maarmaan taageerooyin fara badan oo dawlad badan u doolan jiray halla ku soo dhawaada dukaanka caanka ah Nilis Furniture Design Nilis Furniture Design waxay idin soo bandhigayaan ololaha cusub ee bisha November gaar ahaan dadka isguursanaya oo doonaya inay gurigooda alaab cusub dhigtaan waxaanu diyaar u nahay inaanu caawino dadka mar loo isguursanaya si uu gurigooda u qurxoonaado